magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa maanta waxaa gaaray qaar ka mid ah madaxweynayaasha dawlad goboleedyada oo ay ku jiraan hogaamiyaasha Galmudug iyo Jubbaland iyagoona halkaas si weyn loogu soo dhaweeyay. Madaxdan oo ka ambabaxay magaalada Dhuusamareeb oo maalmihii ugu dambeeyay ay ku sugnaayeen ayaa waxay Garowe uga qayb galeen aas qaran oo maanta loo sameeyay Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi Gaagaab kaas oo dhawaan ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. waxaana meydka diyaarad gaar ah saaka ka soo qaaday magaalada Nairobi waxaana ay geysay magaalada Garowe oo isla maanta lagu aasay. dhinaca kale gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku jiraan senataro ka tirsan aqalka sare oo saaka ka ambabaxay magaalada Muqdisho ayaa iyaguna waxa ay gaareen magaalada Garowe ee xarunta Puntland waxaana halkaas ku soo dhaweeyay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha wakiilada maamulkaasi. waxaana wafdiga gudoomiyaha aqalka sare iyaguna sidoo kale ay ka qayb galeen aaska qaran ee loo sameeyay madaxweyne Gaagaab. afayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabarani oo la hadlay KNN ayaa waxa uu ka warramay sida uu aasku u dhacay. الله نحرسته إن لله وإنا إليه راجعون. الله نحرسته مدحوينيه هراء دولة بنتلاند هراء مربع فينا كليان وصار نقضي لقد يكون ينفر فينا نقضي مدحوينها بنتلاند مركي الله نحرسته مدحوينيه لو دوس مدحوينها صوماليا أكتوبر وحا سيدا حتى أسكو الصعداء وحا نويبي أو سوغاري قروه مدحوينها جبلان أحمد محمد إسلام مدحوينها galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor waxa iyana jooga oo yimi soo qayb galay xubno ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya oo hogaaminayo gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi hadda xarunta aaska ayaa lagu sugan yahay madaxweyne khudbaysay wanaagiisii iyo qiimihiisii iyo sidii Soomaalinimada ugu weyneed sidii Puntlandnimada ugu weyneed sidii midnimada ugu weyneed ayaa laga sheekeeyay isma ayaa iyana ka qayb galaya dhammaan ismada Puntland u joogaan marka aasku sidaas uu socdaa walaal waa aaska madaxweynihii hore ee Allah naxariistay Maxamed Cabdi Xaashi waxa qorshuhu yahay inuu aaso wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax oo gudoomiye iyo jihada ka soo noqday bulsho oo wasiirada ka soo noqday marka faaraxa oo isla ku geeyay toddobaadkan waa rajaynayna in isla sidoo kale magaalada Garowe ee xarunta Puntland waxa ka socota qabanqaabada aas qaran oo isna loo sameeyay ra'iisul wasaarihii hore ee dawladii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax kaas oo maalmo ka hor ku geeriyooday dalka Turkiga. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa la filayaa inay gaaraan magaalada Dhuusamareeb oo biri lagu aasayo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir. iyadoo shalay garoonka diyaaradaha ee magaalada Beledweyne ay ku burburtay diyaarad siday gargaar ayaa waxaa la sheegayaa in shilkaasi uu sababay dameer soo galay dhabaha diyaaradaha garoonka magaalada Beledweyne. Maslax Abuukar Xaaji ayaa dhameystiraya warkan. warbaahinta dalka Kenya ayaa siyaabo kala duwan u tabinaya sida uu u dhacay shil diyaaradeed oo duhurnimadii shalay ka dhacay garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne iyadoo khasaare hantiyadeed oo aad u xoogan uu ka dhashay shilkaasi. diyaaradan oo ay lahayd shirkadda Bluebird Aviation oo ka diiwaan gashan dalka Kenya ayaa Xuseen Maxamed oo ah maareeyaha shirkadda wuxuu cadeeyay in shilka uu sabab u ahaa dameer dhex socday dhabaha diyaaradaha ay ku ordaan isla markaana diyaaradda ay ku dhacday dameerka kadibna ay wadada ka baxday sidaana dab uga kacay. waxa uu hadalkiisa ku sii daray Xuseen Maxamed in weli baaritaano dheeraad ah ay socdaan oo la xiriira wararka warbaahinta qaar ay daabacayaan oo ku saabsan in diyaaradda cilad ay la soo daristay taa oo keentay in dab si dhaqsi leh uu uga kaco. waxay siday raashin iyo agab ciidan oo ay lahaayeen ciidanka Djibouti ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM waxaana laga badbaadiyay 3 ruux oo kala ahaa 2 duuliye iyo 1 caawiye. dhinaca wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya oo aan isku daynay inaan wax ka weydiino wararka ay baahinayaan warbaahinta dalka Kenya ee la xiriira waxa sababay shilka diyaaradeed ee garoonka Beledweyne ka dhacay aysan inoo suuragelin. shilkaanse waxa uu ku soo aaday xilli shilal diyaaradeed oo qaarkood dad ay ku dhinteen dhawaanahan ay ka dhaceen qaybo ka mid ah dalka. aad baad u mahadsantahay Maslax.
hay-adda xasaradaha adduunka ayaa waxay sheegeen in khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka jubbaland ee ka taagan gobolka gado uu khatar amni ku keeni karo dalalka geeska afrika. warbixinta warkani waxa ay haya burhaan diini faarax. warbixin dheer oo ay soo saareen kooxda caalamiga ah ee xasaradaha ee magacooda loo soo gaabiyo i c g ayay waxay ku sheegeen xiisadda ciidan ee ka taagan gobolka gado koonfurta soomaaliya una dhexaysa ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka jubbaland inay keeni karto dhibaato amni oo weyn oo geeska afrika saamaysa. warbixintan waxaa lagu sheegay in ciidamada labada dhinac oo iskudhac uu ku dhex maray magaalada xuduudda ku taalla ee beled xaawo inuu aad u saameeyey siyaasad ahaan iyo amni ahaanba dowladaha gobolka gaar ahaan kenya iyo etoobiya. kooxda i c g layidhaahdo waxa ay warbixintoodan ku sheegeen in ismaandhaafka ka dhex jira dowladda federaalka ah iyo maamulka jubbaland ay si dadban u saamaysay dowladda etoobiya ama dowladaha etoobiya iyo kenya oo labada dhinac la kala saftay. labadan dowladood ayay hay-addu waxay sheegtay in ciidamadooda oo qayb ka ah howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ka socda ee amisom in haddana dhaqdhaqaaqooda gobolka aad looga dareemay islamarkaana ay la kala safan yihiin labada dhinac, taasoo xaaladda sii adkayn karta sida hay-addan ay ku doodayso. i c g waxay tusaale usoo qaadatay in dowladda etoobiya ay ciidamo tiro badan u daabushay gobolka gado ee koonfurta soomaaliya ku yaala markii sidoo kalena dowladda soomaaliya ay ciidamo gaara gobolkaasi geysay. ciidamada etoobiya waxay toos u taageerayeen kuwa dowladda soomaaliya, waxaana gobolka gada laga hoos saaray maamulka jubbaland, halka dowladda kenyana ciidamo dhanka xuduudda ay kala leedahay gobolka gada ay keentay, kuwaasoo iyana taageero siinayay ciidamada jubbaland ee gobolka gado qayb ka jooga. labada dhinac toosu ma aysan muujin inay dowladda federaalka ah iyo maamulka jubbaland la kala jiraan, hase ahaatee waxay baarayaal u sheegeen in ciidamadooda ay sugayaan amniga gobolka si ay uga hortagaan weerara al-shabaab ka geysto. hay-adda warbixintan diyaarisay ee xasaradaha dunida ka faallootay i c g waxa ay sheegaysaa in sanadkii labada dowladoodba ay wada taageerayeen axmed madoobe in gobolada jubbooyinka ama koonfurta soomaaliya uu al-shabaab ka saaro, hase ahaatee dowladda etoobiya ay hadda u muuqanayso inay u wareegtay dhanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya. arrintan ayay hay-addu waxa ay ku sheegtay inay hoos u dhigayso dagaalkii al-shabaab lagula jiray. khilaafka siyaasadeed ee jubbaland ee labada dowladood waxa uu aad u saameeyey khilaafka siyaasadda jubbaland ee labada dowladood wuxuu aad u soo ifbaxay markii ciidamada kenya iyo kuwa jubbaland ay garoonka diyaaradaha kismaayo ka celiyeen diyaarad saanad iyo ciidanba waday oo etoobiya ka timid labadii bishii agoost markaasoo u diyaargarowga doorashada kismaayo ay ka socotay. kenya waxay aaminsan tahay in ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed uu saaxiib dhow la yahay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo, islamarkaana uu doonayo in dalka laga baabiyo nidaamka federaalka loona xiibsibto nidaamka dowlad dhexe sida kooxdan ay sheegayso. dhacdooyinka i c g ay soo xigatay waxaa ka mid ah howlgalkii lagu soo xiray mukhtaar robow oo mansuur oo ka mid ahaa musharaxiintii u tartamayay doorashadii koonfur galbeed, kaasoo ay ka qayb qaateen soo qabashadiisa ciidamo etoobiyaana bishii desembar sanadkii iyo ciidamo etoobiyaana oo la geeyo galmudug dabayaaqadii sanadkii naga dhammaaday kuwaasoo ka qayb qaatay sugidda amniga doorashadii galmudug ee uu ku soo baxay axmed cabdi qoorqoor. hay-addan labada dowladood ee waa kenya etoobiya waxay ku eedeynaysaa ka sokow taageerada siyaasadeed ee dhinacyada soomaaliya isku haya sida jubbaland iyo dowladda federaalka in xataa saanad ciidan labada dhinac ay ku kala taageereen, taasoo dhibaato ammaan gobolka oo dhan ku ah. xiriirka soomaaliya kenya ma ahayn mid wanaagsan tan iyo markii uu soo baxay sheegashada ay kenya ku doonayso inay badda soomaaliya ku qaadato, hase ahaatee waana taas waa ay leedahay hay-addan sababta ugu weyn ee kenya ku taageerayso maamulka jubbaland. si looga fogaado amni darro gobolka oo dhan saamaysa, hay-addan waxay talahaan usoo jeedinaysaa in xoog badan la geliyo xalinta ismaandhaafka siyaasadeed ee gobolka ka jira. waad mahadsantahay burhaan. qaar ka mid ah shacabka muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay waxaa laga filan karo shirka madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ay ku yeelanayaan magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud, shirkaas oo la filayo in maalmaha soo socda uu ka qabsoomo magaaladaas. haddaba qaar ka mid ah shacabka muqdisho waxaa mikrofoonka raadiyo kulmiye la dhex qaaday waryaheena farxaan maxamed xuseen. kulankaas wuxuu u muuqdaa kulan soomaalida madaxda hormuudku ee waddanka ka qayb galeen. waxaan ka rajaynaynaa haddaan shacabka soomaaliyeed oo ka mid ah shacabka ku nool magaalada muqdisho inuu kasoo baa wax fiican oo ummadda dan u ah, danaha ummadda ka turjuma, madaxda meesha ku jirsanna ee ka soo saaraan macnaha warmurtiyeed natiijo fiican oo ummadda waxtar u leh. waxaad u malaysaa haddaa fiiriso kan inuu macnaha ka qiimo badan yahay kii hore, maadaama madaxda waddanka ugu sarraysay ra-iisul wasaaraha sida madaxweynaha kale inay ka qayb galayaan. marka waxaan ka rajaynaynaa hadduu ilaah yidhaha in macnaha natiijo fiican ka soo baxdo. shirar badana horay lan qowda meel badan la ka qowda baydhow la ka qowda garow la ka qowda wal ha ku qaadooyo ha ku bahana ma aragna faangne
laakiin shirkad dhuusamareeb walhaani hor ku duwanyihiin oo man argo inkastoo talan iska saaday meel lislabuu wal natiijo loo saasay ku baayaan magmaleeyo kulli inay midnimada ay ka taliyaan oo ay wax laga qoro ay la imaadaan intaasan ka baaqalahay runtii waxaan leeyahay shirkaas waxaa ka soo bixi doona wax mira dhala oo u horseeda ummadda inay ka baxdo walaacii iyo ishaysigii iyo maxaytan rajadii laga qabay inaan dadku meel inta tago shiri karin oo aysan go'aan gaari karin Soomaaliya marka waxaan leenahay aadaan ugu faraxsanahay wax qurux badan oo ummaddu ku faraxdana ka soo bixi doona horta khilaaf kastaaba hadii dadku uu meel iskugu yimaado xal baa laga gaaraa waxaan isleeyahay wixii la isku haystay wax badan baa laga talaasulay waana la wada hadli doonaa wada hadalkaasna waxa ka soo bixi doona waxay Soomaaliya u aydo oo aan hore ugu socono waxaan ugu baaqayaa inay shirkaas ay maxaytan maanta meesha uu maraya waa qurux badan tahay mar hadii maamul goboleedyada iyo madaxda maxaytan qaranku isku tagaan wax hor mira dhala oo ummaddu ku faraxdo oo dhibaatada looga baxo oo khilaafka looga gudba inay ka soo baxaan ayaan ugu baaqayaa oo ay aad uga taxadaraan dhibaatada Soomaaliya ku dhacday si dib u laaban taa fikirkeyga aan ka dhigto taas waxay ila tahay in hoogaa maaragtay isku soo dhaweysho ay muuqato oo hoogaa liisu tanaasulayo waxa waaye sidii hore hoogaa waa ka yara duwantay saanfilaayo waxa waaye hoogaa inay madaxda dawladdu oo dawladda federaalku ay hoogaa ay u dhugnuglaadeen ishaagada maamul goboleedyada iyagoona inay mas'uuliyadooda ay leeyihiin madaxda qaranka federaalkana ay mas'uuliyadooda leeyihiin baa ilay tahay anigu marka shirkaas sidoo u aragtaa waxa ka soo bixi kara shirkaas wax oo ummadda Soomaaliyeed maaragtay farxinayo ama dan u ah inay ka soo baxayaan baa u filaa aniga shirarkii hore waa igala duwan yahay oo rajidiisu shirarkii hore waa igala fiican tahay aniga xasan ahaan aad u faraxsanahay inay maxay madaxda qaranka iskugu tagado Dhuusamareeb waxaan rajaynayaa inay ka soo baxayaan natiijo wanaagsan